markan ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan. wasaaradda gaashaandhigga dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada lagu tababarayo magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada ay maamusho dowladda Turkiga in la qalabeen doono isla markaana la siin doono hub casri ah. iyadoo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ay ku jiraan ciidamo uu tababarayo ama ay tababarayso dowladda Turkiga ayaa waxa ay wasaaraddu sheegtay in ciidamadaasi marka ay tababarka dhameystaan la siin doono hub casri ah isla markaana ay qayb ka qaadan doonaan howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab. mudane maxamed cali xagaa wasiir dowlaha wasaaradda difaaca ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in saldhigga Turkiga ee Muqdisho uu tababar uga soconayo ciidamo ka tirsan dowladda. wuxuu wasiirku intaasi ku daray in haddii uu dhamaado la siin doono qalab ay ku dagaalamaan si ay uga hortagaan dhibaatooyinka ay kooxaha nabadiidka ay ka soo horjeeda dowladda ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed. ciidanka kuliyadda Turkiga noo dhisay lagu tababarayo waxa uu isugu jiraa laba qayb oo kala ah saraakiil iyo saraakiil xigeen, halka kuwa kalena laga soo ururiyay ciidanka qaybihiisa kala duwan. saraakiishu wali hadda ayuu tababarku u socdaa, laakiin ciidanka kale ayaa qaybtiisii ugu horeysay qalin jabisay, kuwa kalena waa ay daba socdaan insha Allah. muhiimadda ugu weyn waa inay noqdaan ciidamo isku dhafan oo tababaran, ayuu yiri wasiir dowlaha gaashaandhigga. waxa uu sheegay dowladda federaalka Soomaaliya oo uu sheegay in haatan ay ku jirto xaalado adag oo dhanka ammaanka ah ayna dagaal kula jirto kooxaha ka soo horjeeda dowladda al-shabaab, in mar walba ay diyaar u tahay inay mas'uuliyad gaar ah iska saarto dhismaha iyo waliba qalabaynta ciidamada dowladda si baahiyahooda loo daboolo. maxamed cali xagaa ayaa intaa ku daray in ciidamo ay hore u tababareen balse la siiyay tababar haatan lagu wado in loo sameeyo tababaro kale oo dheeri ah si kor loogu qaado xirfadooda dhanka amniga. wuxuu xusay in qof kasta tababar ku qaato kuliyaddan qalabkiisa loo dhameystiri doono.